wadayaal war naxdin badan gabadha lagu magacaabo Miss World oo lagu shirqoolay magaalada Hargeysa ayaa jeelka loo taxaabay waqti xaadirkan. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya taxaabista markaasi xabsiga waxaana lagu xiray sida aan warar ku helnay jeelka dhexe ee magaalada Hargeysa oo ku yaala bartamaha waxaana kiiskeeda loo eedeynayaa sababta ay Soomaaliland u soo gashay iyadoo hore looga celiyay iriboodka Cigaal International. warbixinaan mar hore hadeer soo daayay ayaa waxaan ku sheegay in la rabo in Miss World markaasi lagu xiro gudaha Soomaaliland. warkiina war dhaba ayuu noqday oo xogo hoosaanu ka helnay magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen in gabadhaasi lala damacsan yahay in lagu xiro magaalada Hargeysa. warkiina waa rumoobay oo waxaa ka dambeeyay ninka lagu magacaabo Haykal oo raba in uu gabadhaasi sumcad dil u geysto moobiladeeda waxa ay wadato dhan hanti iyo sidoo kale TikTok-teeda dhammaanba uu la wareego oo xalaalaysto. haddaba daawadayaal cadeymo ayaan idiin haynaa dad ku sugan magaalada Hargeysa ayaa waxay noo sheegeen in kiiskaasi uu ka dambeeyay ninka lagu magacaabo Haykal oo markaasi gabadhaasi isagu u yeeray oo yiri Soomaaliland kaalay Soomaaliland ayaa aad lagaga baahan yahay xaflad kaaga dhigana. arintana waa arin iska cad oo waa wanjalaad iyadu maadaama iska haween tahay gabadhaasi waa la qiyaamay oo waxa lagu xiray magaalada Hargeysa. warar kale ayaa iyaguna waxay sheegeen in ninka lagu magacaabo Suldaan Iskamajeeri inuu ka dambeeyay kiiskan oo markaasi ciidamada Soomaaliland oo isku qabiil yihiin oo beesha Isaaqa uu adeegsaday Miss World maadaama iyaduna hawiyad tahay oo ka soo jeedo xagga iyo koonfurta Soomaaliya. Miss World arin naxdin ayaa haysata oo waxa la sheegay in markaasi eriga dhulba ay CID ka qarisay oo jeelka markaasi lagu xiray. haddaba sidaad halkan ka arkaysaan Maxamed Bakayle wariyaha Soomaaliland ka soo jeeda gaar ahaan beesha Isaaq ayaa waxa uu sheegay in gabadhaasi lagu xiray magaalada Hargeysa isagana warkaasi hadda isaga dhawaan soo galiyay aniguna hore ayaan u sheego waxaan sheegay in gabadhaasi la xiray. haddaba daawadayaal warar kala duwan ayaa ka soo baxaysa gabadhii Miss World oo awal baan ogeyd inay gabadh social media caan ka ahayd waxa macquul ah inay soo cayday Soomaaliland dhawaan oo TikTok-ta ay ka soo dhaxayday waxa macquul ah in 6 bilood sidii Bilaal Bulshaawi oo dalagaga jiro oo la xiro. haddaba daawadayaal waa arin naxdin badan waxa macquul ah in Miss World aadan mar dambe u arki doonin waxaana macquul ah in la soo daayo labadaba way dhici kartaa balse waxay u badan tahay in la haysto iyo in la soo daayaba. Soomaaliland waxay ka soo gashay xuduudda Wajaale oo dhankaas iyo Soomaaliland iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaaliya ay wadaagaan. arintan waa arin yaabkeeda leh naxdinteeda leh. shirqoolkana waxaa ka dambeeyay ninka lagu magacaabo Haykal iyo sidoo kale Suldaan Iskamajeeri oo qaraxyada Muqdisho ku farxa. intaasi war haydin ku noqoto kuna qanca labada qof ayaa ka dambeeya wixii xog ee ka soo baxana dib ayaan ka soo galin doonaa. fadlan isha ku haya halkan oo subscribe noo saara YouTube-keena Hogol News waana mahadsantiin. waxaan idinku bishaaraynayaa inaan kanaalkan soo galin doono waa saaxiibada ku xidhan kanaalka Hogol News wararka Soomaalida iyo caalamka oo dhanba waxaana si gaar ah u falanqeyn doonaa xaaladaha Soomaalida wararka ku cusub ma doonaysaa inaan ka qabtirno wararka Soomaalida iyo caalamka oo dhanba. warbaahinta Hogol News waxay idin ballan qaadi doontaa inaan idin soo gudbin doono xaaladihii u dambeeyay ee marxaladda ay Soomaalidu marayso iyo caalamka waxa ku gadaamanba wararka Soomaalida. haddaba si aad uga mid noqoto daawadayaasha ku xidhan fadlan YouTube-keena subscribe noo saar saaxiibadaada kalena sii gaadsii oo like-tana haddaad ku dhufato kaba si wanaagsan halkan kala soco wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka oo dhan. Hogol News warbaahin ka madax bannaan qabyaalad iyo sidoo kale mucaarad dhago oo dhagta u dhaadhici Hogol News